السلام عليكم everyone soo dhawaada waa macalin maxmuud mar labaad iyo cashir kale halkan waxaanu ku baran doonaa saddex eray oo aad muhiim u ah aadna loo isticmaalo eray walba waxaanu baranaynaa qaabka loogu dhawaaqo micnihiisa part of speech-kiisa erayga lidka ku ah ma isku dhawaq yihiin iyo inaynu jumlad gelin taas baynu isku dayi doonaa hadduu ilaahay noo fududay insha allah erayga koowaad aynu ku bilaabno erayga koowaad waa opportunity waa fursad. Okay, eraygan part of speech daynu fiirino waa noun waa ismi yes ficil maaha. Okay, intaan si fiican u qoro noun yes. So for example waxaan ku leeyahay this is a good opportunity. This my friend is a good opportunity. Tani waa fursad wanaagsan. Opportunity A B daas aan kasoo gaabsado erayga oo dhammaystiran halkaas ku qoran yahay. This is a good opportunity. Tani waa fursad wanaagsan. Ama haddii kale he missed the opportunity. Fursadii wuu qasaariyey. He missed the opportunity. Fursadii waa iska qasaariyey ninkaas. Samaaragt marka opportunity waa fursad. Mahma waxaa jirta luqada dhihi jirtay opportunity knocks the door at once. Fursad hal mar bay albaabka soo qaracda. Baditaasna waa xaqiiqadii fursad soo barto ku far adayg. Erayga labaad achieve waa verb waa ficil. To successfully reach your goal ayaa la yiraahdaa achieve yani riyadaada ama yoolkaaga ama hamigaaga inaad gaartid ama ka mira dhalisid taas ayaa la yiraahdaa achieve. Salaadaan jumlad geli waxaan leeyahay Amina gabadha Amina la yiraahdo she achieved her goal. She achieved her dream and riyadeedii way gaartay way ka mira dhalisay. Dream waa riyo. Yes, she achieved her dream. Riyadeedii way ka meel keentay wayna gaartay. Marka achieve waxaa la yiraahdaa qofka goalkiisa ama yoolkiisa ama riyadiisa inuu gaaro. Hadaan ku you achieved success guul baad gaartay. Humble you. Congratulations. So aragtid. Erayga ugu dambeeyo lastly badi achieve waxay isku macno yihiin accomplish. Hadaan hadda dhaho she accomplished her dream riyooyinkeedu way gaartay. Accomplish. Yes, so aragtid. Good. Erayga ugu dambeeya saddexaad waa simple. Eraygan waa adjective. Adjective waxaa la yiraahdaa sifo. Taas kuma laaban dhowr mar aynu ka soo hadalno. Simple waa wax fudud. Easy. Bay isku macno yihiin. Marka simple iyo easy waa isku macno. Erayda isku macnahana luqad waxaa la yiraahdaa synonyms. Laba eray isku macno. So eraygan kale waa isku macno hadaan dhaho waxaan leeyahay these two words are synonyms. Labada eray waa isku macno. For example, English is very easy. Ama English is simple. Yes. Ama construct simple sentence. Jumlada fudud isku day. So let's do a recap. Opportunity waxaan dhahnay fursad. Achieve waa ka meel gaarid ama ka guul gaarid. Riyadaada, hamigaaga, yoolkaaga. Erayga ugu dambeeya simple waa wax fudud. Yes, the answer was simple or the question was simple. Su-aasha way fududayd. Sabuuradii waa sharaxay waana fuul xumeeyey karaa leexaada. inta baa ku istaajinaya haddii aad rabto cashiradan oo kale groupkeena WhatsApp-ka ku soo biir waa free wax lacag lagama rabo cashiradan baana maalin walba kugu soo diri doona insha Allah. Otherwise stay safe and God bless you. Ciao, bye.